madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka France 24 ayaa ku hanjabay inuu ciidamadiisa kala bixi doono gudaha dalka Soomaaliya isagoo siyaasadda Soomaaliya ku sifeeyay aidis siyaasadeed. Yoweri Museveni oo arrintaasi ka hadlayana The issue of Somalia is where the internal forces don't come up to shoulder their responsibility. If they did, the situation would have been solved long ago. We cannot have grafted situations. waxa uu yiri xaaladda Soomaaliya waa mid aan ciidanka qaranku xil iska saaraynin mas'uuliyadda waayo mar hore ayay wax walba dhamayn lahaayeen xaaladda kacakufka siyaasadeedna looma baahna ee waa in la kobca siyaasad ahaan haddii aan istifaaci karaynin taa macnaheedu waa inuu hayo aidis siyaasadeed. wariyuhu waxa uu weydiiyey haddii wax walba hagaagi waayaan Soomaaliya ciidanka ma kala baxaysa. waxa uu ku jawaabay dabcan haddii aan ciidankoodu xagaha isku taagin waayo taageero dabadeed anigu ma aaminsan in loo baahan yahay iyo ciidan shisheeye haddiise laga maarmi waayo waa muddo kooban. wariyahaasi ka socday telefishinka France 24 waxaa kaloo weydiiyey madaxweyne Yoweri inta ogaalkaaga waxaad joogteen Soomaaliya ilaa iyo 2014 haddii aanan khaldanayn. Yoweri waanu isnila baxa ciidanka yaga laakiin dadka ayaa yidhi jooga. wariyuhu waxaa kaloo weydiiyey hadda miyaad ka saaraysaa ciidankaaga Soomaaliya. Yoweri waxa uu ku jawaabay waa inaanu kala tashanaa midowga Afrika annaguse waxaanu aaminsanahay in isku filnaadaan dadka Soomaaliyeed. ciidamada midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AMISOM waxa ay gudaha Soomaaliya ku sugan yihiin 13 sanadood iyadoo in ka badan 20,000 oo askarina loo soo diray gudaha Soomaaliya oo ka kala socday dalalka Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti.